بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba ay joogaan. Waxa inoo socda gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha ahaa. insha Allah gabayga maanta waxa la yiraahdaa cuqdad, wuxuuna ka hadlayaa cuqdada iyo dibkeeda. wuxuuna ku bilaabay sidan: cuqdad iyo calool xumo qayrka aad ciirsan lahayd iyo casrigaad noolaan lahayd bay cakuye kaa reebtaa. caruurnimadii erey cay ah oo lagugu carabaabay baad ka cuskan weydaa. kolkaad cirkaa u baxdee xaggii aad cosab iyo doog calman lahayd bay cuqdadi kuu diidaa, caqligana curyaamisaa. cuq kugu beertaa, kaa cidlaadaa cabaadku, ceeb moodaa cisiga, shaki cuf kuu noqdaa, cidla keligaa carartaa. dawo iyo cilaaj, cilaaq iyo kaftan, cartan iyo ciyaar, noloshu kugu cuslaataa, cusbitaal aad gashaa. coon noqotaa cadho badan, waagii soo casaadaba cuqdad kuwaa bariisataa. hadal cad lagaa waayaa, ciil ka bixi weydaa, sidii ciidan ku caymadsan, ciidda iyo ku dhaqaaqaan carada iyo dhulku. cunaha ku goysaa, cuqdad ka ladi weydaa, wixii caddaana mugdi cakiran kuu noqdaa. canaad ka bixi weydaa, cabsi ku qabataa, kalsooni darra iyo cabaqa sunta iyo cidhiidhi gashaa. noloshu culays kugu noqotaa, calfan weydaa, nasiibka culusee caynba cayna. maskax curdina sida cajalad u qaban og, calool xumo laguma dhasho, waa cug lagu qaadsiiye. ku curyaamisaa, dhuuxay cadka kaa jartaa, calaacaliyo cabasho keentaa. casiiska alle calaacasha hoos dhigo, caadilka eebba bari in cuqdada kaa biyo. il iyo cudurka kugu ah, il iyo cawri, caafimaad inaad ku noolaato cimriga intaad caalamka joogto. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan idin leeyahay caruurta cuqdad iyo calool xumo yaan lagu beerin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.